دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادرا دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد horreyntii waxaan salaameynaa dadka muslimiinta meelay joogaan gaar ahaan dadka Soomaalida ah warkan wuxuu ku saabsan yahay inaan dadka muslimiinta ah Soomaalida ah warbixin ka siino waxa dhacay iyo sida wax u jiraan maadaama ay jiraan dad badan oo isku dayaya in wax kasta oo la qabtay u leexiyaan dhinaca aan sax ahayn si loo banjariyo howlaha waaweyn ee dadka muslimiinta ah ay wadaan si looga badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed dhibaatadii mataqaana xoogga lahayd ee waqtiga dheer ay ku soo jireen sida ogsoontiin walaalayaal waqtiyo badan ama xakim islaamiga la aasaasay mar walbana maxkamad waxa la aasaasi jiro shacabka oo xasuusin jiray arrintaas marka dhibaatada ay ku badato waxa ugu horeysay 93 maxkamad tanfiid weyn yeelata oo la ogyahay inkastoo ay 91 majmaci culimada ama Sheekh Maxamed Macalin raxmatullaahi calayhi ragii oo hogaaminaya ee maxkamad sameeyay 91 kadibna laga sameeyay maxkamadii labaad laga sameeyay Madiino muddo kadibna ay burburtay maxkamadii Shacab Dheere oo 93 hada ugu horeysay maxkamad si wanaagsan u hana qaada oo meelo fudud gaarta shacabkuna ay si wanaagsan u dareemaan tadbiiq mataqaana xuduud iyo qisaas fulisa muddo markay shaqeysana mu'amara lagu sameeyay waxa la xaqiijiyay in lacag badan lagu bixiyo sidii loo dimi lahaa lacagahaasna laga soo qaaday kaniisadaha ee dalalka shisheeye waxa jooga dadkii ka shaqeeyay oo maanta arrintaas ka shaqeeyay oo runtii ay ku dhacday waxyaabo mucjizaad ah oo Ilaahay cudurka khatar ah uu geliyay ay joogaan oo maanta nadaama ka joogaan maxkamadahan ugu dambeeyay 2003 ayaa la aasaasay waxaana la aasaasay markii dawladda carta ay dhamaad si ahayd shirkii Imbagatin oo socday ay markaas ku soo korortay magaalada Muqdisho dhibaatooyin hore aan ugu jirin oo dil iyo dhac iyo kufsi oo la jiro ikhtitaaf ama qafaalasho leh dad iyo gaadiidka waxa dhacday in dadka Soomaalida ah iyo dadka ajaanibta isku siin loo qafaasho loona haysto madax furasho aad u xoog badan waxa dhacday dadkaas inta la haayo in la cadaabo waxyaabaha dhacay waxa kamid ah ICD in dushooda lagu shubo waxa kamid ah in bacla dhalaaliyo oo lagu dhabiyo si lacag badan ay u bixiyaan iyo cadaab ama ciqaab kala duwan oo lagu sameeyay isla markaas waxaan gadaal ka ogaanay in ay ku hoos jirtay dhoofin oo dadka la qafaalayo ay laba qaybood ahaayeen qayb dalka gudihiisa lagu iibiyo iyo qayb dalka dibadiisa loo diro inay ahaayeen marka qaybtii ugu horeysay ee maxaakiimtu ay ka howlgaleen waxay noqotay qaybtii dalka gudihiisa wax ku iibi jirtay waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo aad u abaabulan oo aad isku xiran intii aan maxkamadaha la aasaasinna rag badan oo howlahaas dabagal ku sameeyay waxay ogaadeen in maalgelin shisheeye ay ku jirtay halkaas maxkamaduhu markii ay hana qaadeen waxa mataqaana la waayay dhaahiradii ama dhibaatadii jirtay afduubkii gaadiidka iyo dadka intuba waa laga badbaaday goobo waaweyn oo muhiim ah oo isgoysada magaalada Muqdisho oo caanka ku ah jira markaas dilka iyo dhaca iyo isbaarooyinkana waa laga wareejiyay bifadlilaahi wa xamdi waxyaabaha ka xasuusin kartiin waxa kamid ah isgoyska howlwadaag waxa kamid ah isgoyska soos waxa kamid ah isgoyska fagac oo kulligooda caan ku ahaayeen dhaca iyo dilka iyo dhibaatada intaas markii la sameeyay magaalada Muqdisho nabadeedii wax badan iska bedelay waxa garab socda intaas dadaal maxaakiimtu ay wadeen iyo dhammaan dadka muslimiinta ah oo ku aadana dadka in la wacyi geliyo dadka in qadiyadaha ay isku haayaan oo dhibaatada ay ka dhalan karto shariicada islaamka ah si cadaalad loogu xukumo ayaa garab socotay waxa garab socotay sidaas oo kale dadka dhaqan celinta u baahan ama xashiishka iyo daraagiska ama tuuganimada dadka lagu soo qabto ama ahalooda lala kaashado oo waalidkooda kale arrintaas oo la diidan yahay in laga qabto lagu dhaqan celiyo loo sameeyo dad culamo ah
oo dhaqan celin kula sameeya xabsiga gudihiisa si ay u noqdaan dad wanaagsan oo bulshadooda wax u tari kara waxaan shaki ku jirin arrintaas in dadka Soomaaliyeed ay wada og yihiin waxaa jira dad xabsiyada maxaakimta ku jira oo laga keenay Yurub oo muqaadaraad darteeda loo keenay si ay u hagaagaan xabsiyada maxaakimta ku jira inta kadib waxaa soo baxday abaabul maxkamadaha ka soo horjeeda oo ay wataan nimankan lagu sheego hogaamiye kooxadyada oo soo baabi'iyay dalka muddo dheer u diidana inuu dego barnaamijkooda wuxuu ahaa markii ugu horeysay in ay warbixino diyaariyaan dad kale ay adeegsadaan una gudbiyaan cadowga ummadda Soomaaliyeed oo Itoobiya ugu horeysay Yuhuudda iyo Mareykanka intaba kadibna waxay ku qanciyeen in magaalada Muqdisho ay ka jirto waxa lagu magacaabo al-Qaacido taas oo ujeedadu ay ahayd in ay hanti fara badan ku soo qaataan arrimahaas markii ay sameeyeen kadib waxaa bilaabatay in la abaabulo oo maleeshooyin loo abaabulo ayaa bilaabatay waxayna soo qaadeen dagaalkii abnaqasheen 28 bishan ay soo qaadeen laguna iclaamiyay isbahaysiga sharta isbahaysiga shaytaaniga ee la magac baxay isbahaysiga nabadda iyo la dagaalanka argagixisada waxaad ogsoon tihiin 18 aan idhaahdo waxaad ogsoon tihiin dadkan Soomaaliyeed waa dad aad u tabaaleysan aad u dhibaataysan kana fikira sidii ay ku badbaadi lahaayeen luqmatul cayshkan ay u heli lahaayeen maxkamaduhuna waxay ahaayeen hay'ad u istaagtay in dadku ay nabad helaan si ay u shaqaystaan si waxbarashadii ay u socoto arrintaasi markii ay dhacday markiiba maalinta la iclaamiyay maalintii ka horeysay dagaal ay bilaabeen si jaaniska ay u helaan dagaal ay soo bilaabeen oo goob ciidamada maxaakimta ay joogeen oo lagu magacaabo kulliyadii hore ciidamada ama kulliyadii jaalisiyaad ay dagaalka ka bilaabeen maalintii ay iclaamiyeen 18kiina waxay soo qaadeen hujuum balaaran oo loo adeegsaday gawaarida tignikada ee kala duwan waxaa saxiixay bayaankaas 9 nin oo magaalada Muqdisho caanka ah oo ah waliba rag hubaysan iyo rag ganacsato ah runtii waa nasiib daro in dad muslimiin sheeganaya ay ku dhiiradaan arrin noocaas waana mid aan caalamka ka dhicin waa mid aan dadka Soomaalida hore uga dhicin laakiin waa dad soo qaaday diintooda ku iibsaday doolaraad yar ku iibsaday waay lana og yahay bulshada Soomaaliyeed 15 sano wixii dhibaato ay u geysteen bilowgii dagaalka wuxuu ku bilowday in la soo weeraro kulliyadda jaalisiyaad ciidamada maxaakimta ay leeyihiin oo joogay kadibna wuxuu ku soo dhamaaday in saf ballaaran 9 nin ay soo galaan ayaa ku xigtay loona adeegsado gawaarida tignikada oo kala duwan bifadlillaahi wa xamdi ilaahay fadligiisa iyo thumma dadaalkii ay sameeyeen ragga dhalinyarada ah iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inta ugu badan dadaalkii ay sameeyeen oo mataqaana loogu magac daray kacdoonka islaamiga ee magaalada Muqdisho ayaa tilibka u dhigay waana jabeen ilaahay waajibiyay waxa laga bixiyay meeshii ugu weynayd ay ka soo weerari jireen maxay ahaato xarashanaad ciidamada u deganaa Cabdiwaal ayaa laga bixiyay 77 waxaana laga qabsaday hanti fara badan waxaana uga dhintay meeshaas dhimasho fara badan waxaa la soo qabtay dad badan oo kala duwan oo kala nooc ah dadkii marka la soo qabtay oo maxaabiista ahaa waxaa la isku dayay marka intaana maxaabiista u gudbin ka hor waxaa la isku dayay in loo fasiro arrin qabiil si loo ijhaadiyo ama loo dhiciseeyo hawshaas qiimiga badan ee ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan iyo dadka muslimiinta ah aadka ay ugu faraxsan yihiin halkan waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo dadka la soo qabtay qayb ka mid ah iyo qabaa'ilkoodii oo xaq ah oo ilaahay dartiisa aan ku sheegayno oo aysan been ku jirin oo aad xariiqsan kartiin ninka koobaad waxaa la yiraahdaa Cabdulqaadir Cali Saciid waa habar bidir waa Sacad ninka labaad waxaa la yiraahdaa Bashiir Ahmed Daahir waa Cayr waa niman la yiraahdaa Sabuux ninka saddexaad waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Cabdulle waa Dugoodi ninka afraad waxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh Ibraahim waa Xariim عوينته كثير سنة وقبل عوينته كثير سنة من كشنات وعبد الرحمن علي وحوالي جذب له ننك لحاد
وإسماعيل علي حجر وحواضله شكيا كجرا ninkan inuu xawaadle yahay inuu magaciisu magac beenayaa loo qaatay laakiin waxa la sheegay nin dilaa ah oo mujrim weyn ah inuu yahay waxaana ah ragii ciidamada Cabdiwaal todoba waa Faahim Abdullah Muhammad asaguna waa habalgidi waa Cayr ninka sideedaad Hussein Saalax Xasan asagana waxa waaye disco waa qabiil xaweynta ka tirsan sagaal Maxamed Cabdi Aadan waa Mareyxaan okay ninka tobanaad magaciisi wali si sax ah lama soo gaarin laakiin waa abgaal waa ciidamada Muuse Suudi ayuu ka tirsanaa waa Daawud marka intaas waxay ku tusinaysaa dagaalka qaabka uu dhacay iyo dadka ka soo qayb qaatay waxaan rabaa inaan idin sheego dadka ku shahiiday maxaakiimta islaamka uga shahiiday meeshaas qabaa'ilka kale ay kala ahaayeen idin tiriyo afar nin ayaa uga shahiiday ninka ugu horeeya wuxuu ahaa raxweyn waxaa la dhihi jiray Macalin Deerow ninka labaad waxaa la dhihi jiray Maxamed Cali Xoogsade wuxuu ahaa abgaal ninka saddexaad iyo ninka afaraadba waxay ahaayeen ninna wuxuu ahaa Mareyxaan ninna wuxuu ahaa Raxweyn isaguna taas waxay tusinaysaa dagaalku labada dhinac been oo isbahaysi islaamiya iyo isbahaysi shaydaaniya inuu ahaa inaysan ujeedo yar ahayn waxaa ku tusinaya waxyaabihii la soo qabtay oo ka mid ah calankan oo laga soo qaaday guriga Cabdiwaal oo ujeedin calankan oo ujeedadu ay tahay in lagu fidiyo dalka Soomaaliya iyo dhammaan meelaha ay gacanta ku hayaan qof kasta oo ku soo biirana xidig looga dhigo ujeedada ugu weyn ay tahay in Soomaaliya sida loo googooyo oo zoneska ay wadaan gaaladu in uu tatbiiq rasmi u noqdo carabka aan ujeedin gudihiisa waa dhiig waxa dhiigaas waxaa daadinaya xidigaha ayaa daadinaya oo waxay ka daadinayaan shacabkii Soomaaliyeed ay ka daadinayaan banaankana marka la fiiriyo calaamadan waxay tilmaamaysaa gumaysi oo micnaha gumaysi ay ka soo qaadanayaan gumaysiga ay ka soo qaadanayaan dhaqaalaha kana waxa loo jeedaa dhaqaalihii waxayna ku daadinayaan dhiigan ay ku daadinayaan sidaas ayaa dadka midabada yaqaana ee sharxa ama loo diro inay warbixin ka dhiibaan calaamada oo kale ama sida la rabo in mataqaana calaamooyinka loo diyaariyo ay ku shaqeeyaan walaalayaal waxaan ka wada dheregsanahay shacabka Soomaaliyeed inuu maanta u baahan yahay nolol iyo deganaansho iyo midnimo inuu u baahan yahay ayaad ogsoontihiin waxyaabaha kale oo tusinaya waxaan inay isbahaysi hayaan waxaa ka mid ah maalintii 18 bishii labaad warkooda waxaa ku jirtay qabiilna ma ahin dawladna ma ahin barnaamijkaas annagaa ku heshiinay annagaa ku fikirnay sidaas ayaa ku jirtay waxyaabaha markhaatida waxaa ka mid ah joornaal Dallasero la yiraahdo Corriere della Sera oo ka soo baxa Talyaaniga waxaad internetka ka baadi kartaa markuu ka soo baxay ayaa muujinaya qanyare maalintii uu ku biiray jawaasiista Ameerikaanka ilaa maalintii ugu dambeysay oo dagaalkan markii la diyaarinayay iyo lacagtii uu ka soo qaatay markii ugu dambeysay ahayd $3 milyan oo loo qaybiyay dadka hawsha ka wada qayb qaadanaya ugu dambeyntii qaybta ugu horeysa waxaan ku nasiixaynaynaa dadkaas jidka Ilaahay ka leexday oo diinta Ilaahay la dagaashay in ay ka haraan waxa ay ku jiraan si ay u badbaadaan adduunyo aakhiro marka labaadna waxaan ku nasiixaynaynaa dadka la jiro ay marin habaabiyaan oo ay ka mid yihiin dhalinyarada qoryaha sida inay ka leexdaan waxa ay samaynayaan marka saddexaad waxaan uga digaynaa shacabka Soomaaliyeed inay dadkaas cadawga Ilaahay oo diinta Ilaahay la dagaalamaan ummadda Soomaaliyeed inay baabiyaan u soo jeestay in ay garab siiyaan ama ay ku khaldamaan ayaan uga digaynaa ugu dambeyntii dadka muslimiinta ee ku qanacsan diinta islaamka waxaan ugu yeeraynaa in shariicada islaamka kor loo qaado lagu dhaqmo waxa maanta la isku haysto haddii cadaalad islaamka haddaan sidii uu yahay u tabaqno oo cadaaladiisa iyo mabaadi'diisa midnimada iyo tasaamaxa ama maxay ahayd isduuqaadka iyo isjacaylka ku dhisan aan qaadano uma baahanayno qabiil marka aan isku dayno islaamka si sax ah inaan u qaadano uguna hawlgalno aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa salaamu alaykum